cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Commandos-ka Gorgor oo kamid ah ururka shanaad dufcadiisii saddexaad ayaa waxay u ambabaxeen dalka Turkiga si qayb ka mid ah tababarkooda ay ugu soo qaataan dalkaas. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, xubno ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka, saraakiil kale oo qayb ka ah taliska kulliyadda tababarka Turkisom ee Soomaaliya ayaana ka sagootiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. taliyaha kulliyadda tababarka Turkisom ayaa sheegay in tababarkan gaarka ah ciidamadan ay ku soo qaadan doonaan dalka Turkiga. yaa wasiir waxaan ku soo dhaweynayaa difacadii ugu dambeysay hadda baxayso laba difacana hore u baxday waana ururka shanaad oo aadayo Turkiga tababarkii taqsiyadii iyo danam si fiican loo tababaray ayay aadayaan. haddana waxay diyaar u yihiin hadalkaaga inay dhageystaan iyo awaamirtana siisid inaan qaadano. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe oo ciidamadan ka sagootiyay garoonka diyaaradaha ayaa kula dardaarmay inay dhowraan sumcadda iyo magaca Soomaaliya, waxaana uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay ka go'an tahay ka warqabka ciidamadan inta ay tababarka ku guda jiraan. waa mahadsan yahay taliyaha Turkisom ee Soomaaliyeed walaalkayga Yaqub, military attaché-ga ee dawladda walaalahana ee Turki, saraakiil xigeenada, askarta oo maanta runtii fursad qaali ah u heshay inay aado takhasuskooda dheeriga ah ee Commandos iyagoo aadi doona insha Allah taala dawladda walaalahana ee Turki dufcadii saddexaad. waxaan filayaa labadii usbuuc la soo dhaafay waxaan dirnay labadii dufco oo ka horeysay, waxaana ka mid yihiin ururkii shanaad oo aada Turkiya iyagoo soo qaadanaya takhasuskooda u khaaska ah ee Commandos-ka. runtii waxay noo tahay farxad aad iyo aad u weyn, waxay noo tahay runtii didiilo, waxayna tusinaysaa inaan hayno wadadii dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan, guud ahaan gaar ahaan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xaqiiqdii waxay tahay farxad ay u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba ee bahda ciidamada qalabka sida. runtii waxaan idin leeyahay hambalyo, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in idinkoo caafimaad qaba oo bad qaba oo wax soo barata oo aqoon ciidan idin soo kordhay dibna ugu soo laabataan dalkeenna hooyo. runtii ayaan idin rajaynaynaa. waxaan idinkala dardaarmaa xaqiiqdii waxaad huwan tihiin sharafta karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaad u socotaan ii sheeg inaad noloshiina iyo aad soo faa'iidaysataan aqoon. marka waxaan idinkala dardaarmaa inaad ilaalisaan sharafka, inaad ilaalisaan dibciga image-ka ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale waxa uu xusay in wasaaradda gaashaandhigga ay ku dhiiratay iyadoo la raacayo tilmaamaha ay bixinayaan khubarada caafimaadka ee ka hortagga COVID-19 in tababar ay u dirto cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga gaar ahaan Commandos-ka Gorgor. dhanka kale waxa uu xusay in dadaalada dib u dhiska ah ee horseedka uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay suuro gelisay in Soomaaliya ay yeelato cudud ciidan. aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa xaqiiqdii inaad raalli ka noqoteen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, idinkoo diyaarna u noqday ama diyaarna u ah inuu difaaco dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba. runtii aad wax idinkaga mahadceliyo wax ka qiimo badan qof naftiisa bixiya ma jiro oo la dhihi lahaa waa mahadsan tahay. dhanka kale xaqiiqdii waxaan runtii u mahadcelinayaa xaqiiqdii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo diyaar u ah oo garab taagan ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu dhismo. inaad maanta meeshaan soo gaarteen oo nuqsiyey amaamiirtiisa iyo tusaalooyinkiisa iyo aragtidiisa. runtii maanta inaan soo gaarno
qorshooyinkii noo degsanaa in ka badan boqolkiiba 50 inaan soo gaarno mahad ilaahay ayay u sugnaatay waxaan ii sheeg adiga aan mar labaad runtii sidoo kale aan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ugu horeeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku xigo saraakiishiisa saraakiil xigeenadiisa qeybihiisa kala duwan haday noqon lahaayeen ciidanka cirka duucan noqon lahaa ciidanka badda duu noqon lahaa taliyaha ciidamada dhulka iyo dhammaan hoggaanadii iyo saraakiishii ka shaqeeyay in aan gaarno meesha maanta aan joogno runtii aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin waxaan u imaaday inaan idin sagootiyo waxaan u imaaday inaan idin tusino inay dawladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ay idin garab taagan tahay heeli hooba dibkan idin wadaagi doonto runtii horumarkiina ka shaqeyn doonto insha Allah ta'ala wax badan aan oo qabsoomay dalkan wax badan waa dhiman yihiin laakiin maadaama aan haysano wiilal idinka oo kala geesiyaal ah oo runtii diyaar u ah in dalkooda dhiigooda u bixiyaan ani waxaan aaminsanahay inuu dalkaani waqti dhow uu noqonayo dal nabad ah dal dadka dhan ay nolol iyo wax u soo raadsadaan oo runtii aan gaari doono dawladaha dariska ah aan gaari doono aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Soomaaliya oo ah dal dhinacyo badan ka soo kabanaya ayaa dhinacyada dib u dhiska iyo dib u habaynta laga sameeyay waxa qayb ka ah dhanka ciidamada